nidhiye hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan adada furay hananka isbiyada horseeday himilada lahayo haatan dabaysay ambalyaan ku nidhiye hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan taniyo in badan hogaami Puntland adada furay hananka isbiyada horseeday himilada lahayo haatan dabaysay ambalyaan ku nidhiye hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan taniyo in badan hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan adada furay hananka isbiyada horseeday himilada lahayo haatan dabaysay ambalyaan ku nidhiye hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan taniyo in badan hogaami Puntland adada furay hananka isbiyada horseeday himilada lahayo haatan dabaysay ambalyaan ku nidhiye hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan taniyo in badan hogaami Puntland in badan adada furay hananka isbiyada horseeday himilada lahayo haatan dabaysay ambalyaan ku nidhiye hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan taniyo in badan hogaami Puntland madaxweynaha dowladda Puntland gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa golayaasha dowladda saxaafadda gobolka maamulka gobolka iyo degmada ciidamada in allaale inta ka soo qayb gashay soo dhaweynta tan weyn ee qaadaha iyo qiimada leh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi madaxweyne arrigaad ka tagtay nabad baad ugu soo noqotay dhibaato ma jirto dadku waa nabad qabaa nabadgelyadu waa fiican tahay xoogaa waxaan dareemaynaa uun abaaraa jira runtii dabeel xagaagiina saaka waad arkaysa waa soo bilaabantay laakiin ilaahay baanu ka rajaynaa dabayshu wax ma wadatee in markaas oo kale hogol baa jiri jirtay Soomaaliya ama Puntland oo maashayso habeen soo guuraysa tii baan ilaahay ka filaynaa aanu ka baryaynaa waadna ku ducayn doontaa waxba laga yaabaa in adigu kala socoto madaxweyne soo dhaweynta reer Puntland waad aragtaa maanta indhahaaga ku macallina wiilkoodii oo madaxweynahoodii oo u maqnaa baa tahay oo u soo noqday ilaahay ugu soo nabad celiyay wixii wara waxay tahay fadhi baynu ku wada hadli doonaa laakiin intaasi soo dhaweyn bay naga ahayd anigoo reer Puntland ka wakiila afkoodii ku hadlaya golayaal iyo shacabba
iyo ciidamaba madaxweyne soo dhowow waa ilaahay xamdigiisa weeye haddii ilaahay nabadgelyo isugu keenay soo dhowow madaxweyne. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينه ku-xigeenka dowladda Puntland, gudoomiyaha golaha wakiilada iyo ku-xigeenadiisa, golayaasha dowladda, ciidamada, gudoonka gobolka iyo degmada, culimada, bulshada qeybaheeda kala duwan ee halka isugu timid, saxaafadda dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan runtii aad uga mahadcelinayaa soo dhoweyntan mugga leh oo maanta halkii lagu soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenku hogaaminayay guddoonka baarlamaanku. waan ka mahadcelinayaa iyo golayaasha dowladda iyo qaybaha bulshada. runtii muddo waxaan ku maqnaa magaalada muqdisho iyo nairobi. waxaan marka ugu horeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahadcelinaynaa arrin muddo 2 sano ah dadka Soomaaliyeed ku taagnayd oo doorashooyinkii heer federaal ahaa oo si nabad ah ku soo gabagaboobay, oo runtii aan uga mahadcelinayo dhammaan intii ka qayb qaadatay ugu horeeyaan golayaasha baarlamaanka ee labada aqal iyo ciidamadii ammaanka sugayay iyo dhammaan gudiyadii kala duwanaa ee hawshaas waday. runtii Puntland si mugle ay uga qayb gashay, waxayna ku faraxsan tahay natiijada ka soo baxday. waxayna ilaahay ugu mahadnaqaysaa in si nabad ah uu xukunkii dalka u kala wareegay iyadoona wax dhibaato ah dhicin. waxaan rajaynaynaa insha Allah muddada soo socota in dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dalkuba uu ka faa'iido horumarkii socday inuu hore u sii socdo, isbeddel kasta oo yimaadana uu khayrkiisa la imaan doono. intaa uga baxo, runtii sida madaxweynuhu sheegay, Puntland waa degaan iyo dowlad ka mid ah dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo muddo 23 sano ah jirtay, oo runtii dowladaha iska dambeeyay ee heer federaalna ka horeysay. waxa ay muujisay deganaansho iyo horumar aan kala har lahayn oo joogto ah. waxaana markhaanti u ah mar walba dadkeeda iyo degaankeedaba sida ay u xasiloo yihiin oo dhibaato kastoo soo wajahda ay xal ugu helayaan. waxaan u rajaynayaa iyagoo bulshadu is wada haysata qaybaheeda kala duwan, dhaqan iyo siyaasiyiin iyo culummo iyo waxgarad kaleeto iyo dhalinyaro iyo haweenba, in lagu sii fara adeego sidii loo horumarin lahaa dowladnimadaas ay Puntland haysato, iyo qodobkii labaad oo ahaa baadigoobka Soomaali xasilan oo degan iyadana in mar walba loo taagnaado. marka iyadana waa uga mahadcelinayaa dhammaan shacabka reer Puntland meel kasta joogaan. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa sida la sheegay guud ahaan dalka Soomaaliya iyo geeska Afrikaba cabsi abaareed oo ay laga baqaa inay macluul isku beddesho ayaa qarka loo saaray. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku filan wax la baryo. aadano wuxuu hayo waa kooban yihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa roob caamiyo ah oo aan dadka wax yeelin, oo wax tara, oo runtii dadka qaboojiya ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu na siiyo xilli kasta oo lagu jiro dayr iyo gu iyo xagaama kale le. ilaahay raxmadiisa isaga haya. ilaahay baan ka codsanaynaa ilaahay dhankiis oo ka baryaynaa ilaahay inuu roobka ummadda siiyo, maxaa yeelay wax kale oo aan la gaarno ma jirto. waxaa intaa ii dheer, iyadoo ilaahay aan raxmadiisa rajaynayno in dhammaan qaybaha kala duwan iyo dowladduba ay u foojignaadaan u guntadaan sidii abaartaas hadda taagan iyo hadday ka darto labadaba inaan annaga wixii bini aadan wixii la faray ahaa ee digtooni iyo maaragtay taxadar inaan isla garab istaagno, oo bulshada iyo gudiyada iyo wasaaradaha ku shaqada leh arrintaas inay xoog saaraan, oo guddi joogto ah arrintaa jiro madaxweynuhu uu madax u ahaa in la xoojiyo, bulshada lagu baraarujiyo. maxaa yeelay muddadii u dambeysay roobab baa hadba yara curcuranayay, isku halayn ayaa mar walba dhicaysay. laakiin waxaan rabnaa khayr wax kaama dhigay shar u tooghay inaanan raxmadda ilaahay annagu ka quusanayn, laakiin inaan taxadarkeenna iyo foojignaanteenna iyo diyaargarowgeenna aan muujinno. waxaan rajaynaynaa insha Allah kulamada u horeeya iyo shaqooyinka u horeeya aan qaban doono inay noqdaan sidii loogu diyaargaroobi lahaa gurmadka dadka runtii meelaha qaarkood daad la'aanta iyo biyaha ay ka jiraan.
kana taxadarno ka gaarno inay dadkeenu runtii guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo kuweenaba inay maaragtay xeer macluul la gaaro waxaan ilaahay ka rajaynaynaa mar labaad in uu raxmadaas uu waafajiyo oo ilaahay maaragtay uu u naxariisto bulshadeena dabcan waa kulan hordhaca halka iyo soo dhaweyn iyo mahadnaq soo dhaweynti ah dabcan waa isu warrami doonaa marxalad cusub uu dalku galay marxaladda cusub iyo dowrka Puntland ay ka qaadan doonto iyo siday dib u dhiska dalka Soomaaliya mar walba ugu taagnay iyo hadday wax ka khaldan yihiin toosinteeda labadaba waa shaqo na sugaysa mar walba oo golayaasha dawladda iyo dadkeedaba sugaysa mar walbana si constructive ah oo togan oo toosan oo dalka dantiisa ah ayay mar walba reer Puntland u taagnaan jireen haddana waxaan rajaynaynaa inay kaalintooda u sii taagnaadaan waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo waxa shaqooyinka Puntland u yaallay socdayna inay sidooda u sii socdaan oo arrinta emergency ugu horeyso ah xagga abaaraha oo ah runtii aad inaan xoogga u saarno aan rajayn doonaa haddii ilaahay idmo dalku abaartu waxaa waqdinteeda waa wada jirtaa waana lagu kala daran yahay waxaan filayaa Puntland waa meelaha runtii u nugul oo maaragtay dadkeedu iyo deegaankeedu biyo la'aanta ay aad ugu badan tahay iyo dhulku aad u ballaaran arrimahaas kulle waxay nooga baahnaan doonaan insha Allah shaqo waqtigeeda ah laakiin waxaan rabaa si hordhac ah inaan bulshada dal iyo dibadba jirta aan ugu baraarujiyo inay xaalad khatar ay imaan karto sida warbixinaha hordhaca lagu sheegayo marka diyaar garow ayaana laga doonayaa annagoo isku duuban oo iswada haysanna dabcan waxaa intaa noo dheer oo ilaahay baryadiisa noo dheer dad muslimiina oo mar walba gafayaan nahay wixii dunuub ah ee dadka kala gaaray in la iska cafiyo in dadku ay maaragtay marxalad cusub oo weligeedii allahe doorashooyinku waxay iska leeyihiin laxaw iyo isqoonsi iyo maaragtay tuhun bay leedahay waxaan u baahanaa sidii dadkan lagu yaqaanay xilliga tartanku jirana waa la tartamaayo waa la isqoonsadaayo waxbaa dhaca laakiin markii ay dhammaato sidii lagu aqoon jiray in laga gudbo oo hore loo socdo oo dib aan loo fiirin ninkii gadaal fiiriya horumar ma gaaro marka hore inaan u soconnaan u baahannahay waxaan markaana hor yaallaa la rabaa inaan ka shaqeyno wixii tegayna cafallahu camaa salaf in laga soo qaado marka aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum